waa la joogay wiilkii uu yimid haye waa u soo dhaweysay cabitaani u keentay way fadhiisisay si qurux badan way u labisatay marka wuxuu yidhi haye abaa dadka ay baraysay gabadhaa rabta in lagu caawiyo markaas tiraahdo waxaas filin waaye anaa iska soo dhistaniyo runta haddaan kuu sheego aniga gabar ii soo socotay ma jirto gabaraa shaqo ii geenaysayna ma jirto anaa isku kaa rabo ku jecelniyaho waadna aragtay inaan nambarkayga ku siiyo waadna isoo wici weyday waad ifahmi weyday intaas ka badan waxaan go-aansaday inaan adiga aan foolka fool kugu sheegto jacaylka aan kuu qabanin waa ku jeclahay wax ila qabo wiilka wuxuu leeyahay soo qatar maahan leeyahay dhib soomaaliga gabadha saaxiibada ah oo walaasha oo kale ah ayaan la socdaa ina adigana haddana xiriir kula sameyso qalad maaha markaas waxay tiraahdaa taas waa xalinaynaa xalkeeda loo keenaa bal hadda iga aqbal xiriirkan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo noqosho wanaagsan walaashin manaal dhooley janaalka aad daawanaysiina oo manaal production inta ayagu cusub waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe-ka ii saartaan inta sadiigu caawin kartiin waxaan ahay walaashin qaali marka maanta waxaan idin wadaa sheeka aan hadda ka hor idinku kala gooyay editingka dib iga imaada awgeed iyo taleefonkayga oon maskax badan lahayn aan ii ogolaan marka waxaan go-aansaday maanta inaan sheekada afka idinkaga sheego idiina dhammaystiro insha allah. waxaa jiray 2 gabdhood oo saaxiibo ah oo isla soo koray ilaa yaraantoodii mid waxaa la yiraahdaa Sabna midna waxaa la yiraahdaa Buja qisadan waxay ka dhacday Hindiya 2 gabdhood ilaa yaraantoodii saaxiib ahaayeen meesha ku dhashay meel hal meel bay ku wada dhasheen hal meel bay wax ku wada barteen kadibna markii waxbarashadii dhameeyeen waxay u soo aadeen magaalo kale inay shaqo ka helaan shaqadii ay heleen way ka wada shaqeyn jireen hal guriga wada degnaayeen hal meel wax ku wada cuni jireen saaxiibo waxay ahaayeen lilaahi oo nafta ku wada dhaxayso. maalinkii dambe waxaa dhacday Buja oo 27 sano jirtay Sabnaana 24 ay jirtay ayaa Buja waxay yeelatay saaxiib jacayl ah kadibna markay ogaatay Sabna inay saaxiibteed ay yeelatay jacayl waxay ka codsatay inay jacaylkeeda barto Buja way ka aqbashay maalinkii dambe guriga keentay wiilkay saaxiibka ahaayeen way isbartay labadoodii maalintii la barayay Sabna wiilkan way ka heshay way jeclaatay ku jeclaatay maxumay iimaan dara u geysay haddii jacaylkeeda ayada ku ekaan lahaa wuxuu ahaan lahaa wiilkii isla maalintii la baray ay waxay samaysay inay u dhiibto si qiyaano ah nambarkeeda ay si qiyaano ah iyadoo iska dhigaysa inay salaamayso u gelisa nambarkeeda gacantiisa wiilkii wuu arkay xaanshiini u dhiibtay wuu iska baxay markuu baxayay daaqadii ka fiirisay ayadii fiiriyay warqadii fiiriyay dhulku iskaga tuuray wuuna iska baxay. maalinkii labaad ayay yimaadeen Buja iyo saaxiibkeeda xaafadda maalinkii labaad markuu imaadeen ay u baaqday tiraahday haye maxaa kugu dhacay shalay dhan waan ku sugaa inay soo wacdid nambarkayga soo kuma qoro maxaa ii soo wici weyday hadda kadib isoo wacay ku tiri marka dhagtay intaas ugu sheegay gabadhi kale iska mashquuline maalinkii labaad wiilkii iyo gabadhiis meeshay ku sheekeysteen uu iska laabtay maalinkii labaad xataa nambar waxay sugaysay inuu soo waco uu soo wici waayey maalinkii saddexaad ayay Buja ka codsatay in ay siiso nambarka Sunil wiilka Sunil ayaa la yiraahdaa Sunil nambarkiisaan ka rabaa tiri saaxiibay markaas waxay ku tiri maxaa waa danta ka soo gashay Sunil marka wiilku waa wiil actor ah waxay tiri saaxiibaday oo actorad ah oo rabto shaqo meeshaan ka rabto Mumbai ayaa u baahan in loo soo dhameeyo shaqo filimaanta ah sidaas darteed ayaan u rabaa inuu ii caawiyo nambarkiisa si waayay tiri WhatsApp-ka kugu soo ridaa WhatsApp-ka kugu soo tuuraa isugu tiri shaqay u socotay way baxday oo u soo tuurtay maalinkii markii loo soo tuuray nambarkii way wacday wiilkii waxay tiri ii imowdanaan ka leeyahay waa la joogay wiilkii uu yimid haye waa u soo dhaweysay cabitaani u keentay way fadhiisisay si qurux badan way u labisatay marka wuxuu yidhi haye abaa dadka ay baraysay gabadhaa rabta in lagu caawiyo markaas tiraahdo waxaas filin waaye anaa iska soo dhistaniyo runta haddaan kuu sheego aniga gabar ii soo socotay ma jirto gabaraa shaqo ii geenaysayna ma jirto anaa isku kaa rabo ku jecelniyaho waadna aragtay inaan nambarkayga ku siiyo waadna isoo wici weyday waad ifahmi weyday intaas ka badan waxaan go-aansaday inaan adiga aan foolka fool kugu sheegto jacaylka aan kuu qabanin waa ku jeclahay wax ila qabo wiilka wuxuu leeyahay soo qatar maahan leeyahay dhib soomaaliga gabadha saaxiibada ah
oo walaasha oo kale ah ayaan la socdaa inaa adigana haddana aa xiriir kula sameyso qalad maaha. markaasi waxay tiraahdaa taas waa xalinaynaa, xalkeedaa loo keenaa, bal hadda iga aqbal xiriirkan. wiilka wuu fikirayaa, asagiina damacii shaydaana qaaday, si qatar ahna waa loogu labistay. wiilkii damaca qaaday, xiriirkii uu ka ogolaaday, gabadhii baashaal uu la bilaabay, maalin kasta guriga ugu imaadaa. gabadhii maalin walba waxay bilaawday subaxdii meeshii shaqo ka aadi jirta, gabadhi waxay ku tiraahdaa waa jiranahay maanta ma bixi karo, ilaa ninkii la balansan tahay. gabadhi way iska baxdaa, way yaabtaa, maxaa yaantan kugu dhacay walaalay, leesiya shaqada ka noqotay, maalin walba fasaxa qaadanaysaa, maxaa kugu dhacay? ma anaa wax is iga yihiin, shaqo ma aadi kari, sidaan waaye kan waaye. adi ultimo wiilkii maalin walba keensataa gabadhan guriga, oo la baashaalaa, uu la seexdaa, uu ka tagaa. gabadhan markay imaadana tan kaloo gacanta uu soo qabsadaa, tan kale uu la baashaalaa, uu la sheekaystaa, uu ka tagaa. maalinkii dambe gabadhan way yaabtay, gabadhan isbedelka ku imaaday, way weydiisay, waxay ku tiri naahoed sabnaa adiga saaxiib maa yeelatay, jaceyl maa yeelatay? markaasay tiri haa, laakiin waxaan rabaa intii in laga gaarayo inaan arinteyda ay sir ii ahaato. maalintaan go-aansano inaan wax isla soo meel dhigno ayaan waxaad noqonaysaa qofka ugu horeeyaan u sheego. markaas waxay leeyahay wiilka ma aqaanaa? markaas tiri may ma taqaanid. ayadoo sidii u wareysanayso ay fadhiga isla fadhiyaan ayay kacday sabnaa, taleefonkeeda meeshay uga tagtay, wiilkiiyaa mesaj u soo diray. abaa heeley waa kuu furtay mesajka, waa fiirisay, way aragtay hebelow inuu soo qoray mesaj oo jaceyl ah. way yaabtay, way xanaaqday, waxay samaysay garan weyday, way u wacday, waxay tiri sabnaa suniil wax maa idinka dhexeeya camal? markaasay tiraahday maya see waxaas ugu fikirtay, acuudu bilaahi. way iska aamustay ayadoo yaaban. maalin walba shakiya gabadhi kusii beermaayo, maalin walba shakiya ku beermaayo. maalinkii dambe wiilkii isagana weydiisay, waxay tiri gabadhan maxaa idinka dhexeeya? waxba nagama dhexeeyaan, muwaalanta ku dhahay. waa la joogay. maalinkii dambe ayadoo gabadhi guriga joogto sidii u fadhido u fajacsan ayuu soo wacay. koolkiisii ee aragtay, way ka qabatay taleefonka, laakiin ma aysan oran, ma aysan iska dhigin. ani haddaa ayada ahaan lahaa intaa codka furo aan dhihi lahaa la hadal. markaas ayadaaba la hadashay, buuja guriga maa joogtaa? haa gurigaa jooga. keligaa maa taha? maya. buuja maa joogta? haa. buujada ayadaaba kula hadlaysay ku dhahay. markaas markuu taleefonka dhigo wuxuu dhahay taleefonkaaga ii soo geli waaye, saas darteedaan taleefonkan kaaga soo wacay. gabadhi taleefonkeeda dee fiirisay cid soo wacda male, needwaageedan waa fuul. way iska aamustay. gabadhii haddana su-aashii weydiisay, waxay tiri gabaryahay maxaa wiilkaa idinka dhexeeya? mar walba miyuu ku soo waca? may ima soo wac mar walba. meeshii ku aamusiisay. adiga maalinkii dambe wax shaqo aadayay iska dhigtay. shaqadii markay aaday, xabadkeedii u yimid sidii caadada ahayd, ayadoo guriga lagu jiro oo qolka dambe lagu jiro oo la baashaalayo ee baaheelay imaadeen. laakiin ha imaadee tale guriga ma furnayn albaabka. waxaa ku qasbanaatay inay gambaleelka soo yeeriso. gambaleelka ay soo yeerisay. gabadhan waxay tiri anaa soo fiirinayo. markay timid iridii meel waxaa jirta qofka baqbaqa laga fiiriya, baqbaqii ka fiirisay ayada inay tahay. markay aragtay way kala boodeen, barsaduu soo fariistay, way ka furtay albaabka. waxay tiri maxaa intaas oo dhan albaabka garaaca iiga furweeda kasta musqushaan ku jiray kuma maqlin. haye markii gudaha soo gashaba ninkiyaa u fadhiya meesha. haye war maxaa soo doontay? maya adigaa rabay inaa sabraysko aga dhig aragtidaada, ina adaan kadiska aga dhigayaan ku imaaday. maanaa ii timid haa. marka meesha waxaa miiska saaran hadiyad barafuun ah u keenay xabadan, oo barafuunka brandka ee jecesha uu usoo gaday. hadiyadii meesha u saaran. ninkaas wuxuu yidhi hadiyadan adaanba kuugu talagalo oo kuu keenay. haddii hadiyadii furtay waa gabadhan dooqeeda barafuun ah. waxay tiri aniga dooqeyga ma ahay tiri barafuunka. markaas wuxuu yidhi ani maxaan ka aqaanaa, waa kusoo qaldamay, haddaarti waa kuusoo bedelaa. meeshaas shaki fiican galay. waxay tiri may waxbaa iisoo bedelin. barafuunka sidiisii ugu dibtay gabadha. waxay tiri maadaama ayada dooqeeda u yahay ayadaan siinaynaa, adigana or iska bax, ani hadda madaxa liiga hayaa, maba hadli karin. saas miyahaa? sidii uu iskaga tegay. maalinkii dambe gabadhii way fikirtay. waxay istiri labadan qof wixii ka dhexaysay ku ogaan kartaa, ilaan qof kale kuusoo sheegaya male. gurigii waxay ku xirtay kaamiro, barsadii kaamira u gelisay qarsoon, qolkiina sidoo kale way u dhigtay, way ka tagtay. habeenkii markay timaaday ee aragtay labadan qof oo baashaalayo, oo maaragtay de laba qof oo xiriir ka dhexayso, hadba qoslayo, hadba istaataabanayo, hadba saan yeelayo. gabadhii meeshay ku qaracantay, far la qabta ayadoona lahayn, xanaaq ciil
waxay isla cilkaan mise haddayba xataa israbaan maxay adiga kugu sheegayaan maxay kuu qiyaamin aaday u xanaaqday ayadoo aad u xanaaqsan oo xanaaqeedana tusaynay dhahday sabnaaca waxaan rabaa xaflad inaan dhigano maadaamaan saddexdeena weli aan hal meel kooda caweyn waxaan rabaa xogaayaro xaflada inaan dhigano marka saas ugu okay dhahaysaa saddex labadoodiba way balamisay cabitaanay soo gaday meeshaa la baashaalay daangi iyo adduunyaa la wada cunay waa la qoqoslay waa la kakaftamay markii dambe waxay tiri haye sheekada xiiseeda anaa hadda inii haay waxbaan rabaa inaad tuso labadiina taleefonkii usoo bixinaya marka uu ugu duubnaa sirtooda ugu duubnaa markay daawadaan ay arkaan videoga ee gabadhii meeshaas afka ku furanay leeda sabab maxaa saas la iigu galay haddaa xitaa adiga aad jeclaatay tiri maxaa saas iigu gasho markay tiri qalbiga inaan kaa jabiyo ma rabin waxaan rabay in aan kuu sheego arrintan anigana ninkan waa jeclaad okay adi waaba jeclaad ka soo qaad asagii waxay tiri aniga maxaa xataa ii tiri waa ku guursanaa oo beenta aad iigu sheegtay adigoo og inaa i rabin oo aadan oo walaashii saaxiibaday ah igu xadgudbay see igu sheegi weyday iga qarisan haddaa xataa ii sheegi lahaydeen xitaa waa idin weydiiyay haddaa ii sheegi lahaydeen waxbay ahaan lahayd maxaa saas iigu gashan gabadhii way xanaaqday bastooladii soo qaadatay waxay tiri labadiinaba maanta nafta waa idin dhaafinaa bastooladii markay ku ridi rabtaa ninkii isku duubay uu la qabsaday markuu la qabsaday bastooladii gabadhii ayuu ku dhuftay labadoodiina sidii ayaa lagu xiray oo lagu xukumay Sabna iyo Suniil sheekadeena halkaas ayay kusoo gabagabowday marka waxay ka sheekadan naga waaninaysaa qisadan in aysan dhicin inuu xadgudub laba qof oo saaxiibo ah aysan isku xadgudbin haddii ay dhacdabana inuu jecel yimaado usan kula tashan inaad qofka u sheegtid waayo qofka ugu badnaan wuxuu samayn karaa inuu xiriirkaas gooyo laakiin naftiisa ay u joogayso insha Allah sidaas in nabadgelyo mahadsantihiin